waxaanu maanta nasiib u yeelanay inaanu ku daahfurno stuudiyo cusub TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. bushaaro weyn wada garanayna waxaanu rajaynaynaa horta markii hore wasiir baanu islahayn baa la siinaya haddii gabdhaha in wax loo magacaabayo laakiin waxaan ogaanay madaxweyne aad iyo aad u aqoon badan weeyaane wuxuu garanayay meelaha baahidu ka jirto looga baahan yahay inaan mikrofoonkeedii weli laga maarmayn annagoo ka duulayna siyaasadda wadajir iyo waxqabad ee uu nagu hagayay madaxweynaha iyaga sharafta la Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Qirro waxaa ka go'an in xarun kasta oo ay dawladdu leedahayba la tayeeyo la casriyeeyo la horumariyo noqoto meel bulshada si siman ugu adeegta runtii farxad weyn bay noo tahay waxa goobjoog maanta madasha noogu ah oo nala jooga salaadiintii boqorradii waxgaradkii xildhibaanadii Jamhuuriyadda Somaliland tiknishanadii baa halkan nala jooga Cismaan Qays baa hogaaminaya shaqala ku xiga iyo xarig leh boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow ayaa runtii na hogaaminaya oo daah furaya isaga iyo Suldaan Ismaaciil Cabdishiir oo wada garanaysaan oo runtii nasiib aan u yeelanay maanta inay nala joogaan aad baan u salaamayaa khiyaarta odayaasha boqorrada salaadiinta aqoon-yahanka ku kulmay madashan qiimaha leh ee taariikhiga ah ee TV-geenii qaranka oo maanta dib loo cusboonaysiiyey oo dib loo maaragtay habeeyey inaynu ka qayb galno furitaankiisii magacaabista ay soo magacaabeen laba qof oo aad ugu qalmay inay xilkan ummadda u qabtaan waa Bushaaro Baanday iyo Cabdisamed dhammaantiin aqoon-yahankan salaadiinta ka soo qayb galay munaasabadan cusub ee lagu daafurayo telefishinka qaranka UK qaybtiisan cusub waad mahadsantiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Marwo Bushaaro Cali Maxamed oo tacab badan gelisay telefishinkan aqoon iyo khibradna iyo aragnimona u leh ilaahayna waxaan ka baryaa inuu hawsha intaa uga sii fududeeyo waxa maanta aad iyo aad igu farxada oo runtii maalin weyn igu ah in laba qof oo aad iyo aad u qiimo badan waa Bushaaro Cali iyo Cabdisamed Cali runtii TV-ga qaranka loo soo magacaabay runtii waxaan arkayaa niman iyaguna aad iyo aad u qaaliya Cismaan Qays iyo shaqale iyo xarigle oo runtii saddex nin aad iyo aad u qaaliya xafiis cusub oo qalabkiisa wada cusubiya East London oo markii ugu horeysay la keeno TV-ga qaranka waa dadka magac ku leh oo runtii qiimo badan inagu leh aad iyo aad bay sharaf nagu tahay waan idin baarigaynaa waxaan runtii ku baarigayaa xafiiskan cusub ee ay fureen oo runtii aan isleeyahay wuxuu qayb ka noqon doonaa isbeddelkii la wada filayay inuu Somaliland ka qabsoomo in isbeddelkaasina uu London soo gaaray gaar ahaan TV-ga qaranka waa wax aad iyo aad u weyn runtii waxaan aaminsanahay labada shakhsi ee loo soo magacaabay TV-ga qaranka Somaliland ee qaaradda Yurub gaar ahaan waddankan Ingiriiska Bushaaro Cali Baanday iyo Cabdisamed Cali Madoobe Bushaaro aynu garanayno doorkii ay warbaahinta Somaliland ku lahayd iyo inay tahay wariye runtii muddo dheer ka soo shaqeynaysay warbaahinta inay maanta ka mid tahay madaxda TV-ga qaranka Somaliland waxaan aaminsanahay waxaan oran karaa waa xidig godkiisa helay runtii waan u hambalyeynaya Bushaaro iyo Cabdisamed oo isaguna muddo dheer bahda saxaafadda la soo shaqeynayay farxad gaar ah noo tahay annaka reer East London maanta xafiiskii iyo safaaraddii inaynu wada joogaan iyo jaaliyadtiba alxamdulilah labada qof maanta ugu mudan saxaafad ahaan UK na waa la yacyinay Bushaaro iyo Cabdisamed sidoo lahaa Khalid waa xidig godkiisii helay waxa leeyahay mabruuk marka idinka mabruuk mar labaadna waxa telefishinka qaranka maanta la furayo mabruuk runtii maanta in halkan keentay sharaf weyn bay runtii idin tahay annaguna inaad kala soo qayb galno waa idinku baarigaynaa stuudiogan quruxda badan ee casrigaana runtiina keentaan waa idinku baarigaynaa saxaafaddu waa maanta adduunyada halka laga dagaalamo hubka keliya lagu dagaalamana waa saxaafadda in awoodda ugu badan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda warfaafinta siiba TV-ga qaranka iyo saxaafaddeena runtii aynu awood badan gelinaa loo baahan yahay wasaaradda waxaan doonayaa runtii inaan ku adkeeyo in wasaaraddu ay budget u lokeyd garayso oo kamaradaha iyo barnaamijyada laga soo deynayo qaranka ee TV-ga qaranku soo deynayo ee wadamada qurbaha laga soo deynaya aad iyo aad ugu muhiim yahay dadka Soomaaliland iyo midnimadiisaba Cabdisamed iyo Bushaaro runtii dad aad u qiimo badana oo runtii isku wadka bulshada runtii aad iyo aad runtii uga shaqeeyay imikana hawshan adag
runtii telefishinka runtii ay soo gaadhay East London waxaan idin leenahay horta marka koowaad hambaliyo tanina waxay ka mid tahay isbedelada sida laga sheeganayo mahad isbedelkii xukuumadda wadajir iyo waxqabad furitaanka xafiiskan cusub ee telefishinka qaranka oo soo kordhiyay in safaaraddii iyo telefishinka qaranka ay soo dhowaadaan oo madaxda markay timaado halkii ay laba safarka gelgelayeen hal meel iminka ay isugu yimaadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan idin baarigaynaa agaasimaha bishaare baande iyo cabdisamed cali madoobe dhammaan tiimka la shaqaynaya qays shaqalle xarigle iyo dhammaantiin martida ka soo qayb gashay ee uu hogaaminayo xarigan uu ka jaray boqor cismaan waxaan leenahay xafiiskan ilaahay ka yeelo xafiis barakaysan kolley anigu haddaan nahay baada dhaqanka ducadan idin raacinayna xafiis barakaysan allah ka yeelo maamulka ay ugu horeyso bushaare cali baandey ee casriyeeyey xaruntii aynu UK ku lahayn West London inay u soo raraan halka kan meeshan quruxda badan leh haddii aan laba leeyahay ummaddii dhexdeedina soo dejisay tacabka faraha badan iyo dhaqaalaha badan geeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa bushaare waynu wada garanaynaa bushaare waxay ahayd baalalkii ay waddani ku duuli jireen waxaanu rajaynaynay horta marka hore dee wasiir baanu islahayn baa la siinaya haddii gabdhaha in wax loo magacaabayo laakiin waxaan ogaanay madaxweyne aad iyo aad u aqoon badan weeyaane wuxuu garanayay meelaha baahidu ka jirto looga baahan yahay inaan mikrofoonkeedii weli laga maarmayn nu bishaare aqoon badan baanu lahaa waan filaya inay hal abuur adag la imanayso waan ku hambalyaynayaa anigu waxaan uga imi shafiil baan uga imi waxaan soo socday 3 saacadood iyo dheeraad xukuumaddana waan u hambalyaynayaa markaan leeyahay hadda waxayna kaga filan bushaare iyo cabdisamed iyo raggan garbahooda ah tallaabada ay qaadeen waxaana filayaa inay weli dowladda waxtarkeedii sugayaan inay iyagu cagafta jiirsiiyeen markii horeba inay wax abuuraan taana waan malayn karaya laanno dowlad yabyaba weeyaano inta bajedka la raadinay inaanay bajedba sugayna waan malayn karayaa iyagu kartidooda iyo raganimadooda waxaan la leeyahay bishaaro adeer waan ku hambalyaynayaa adiga iyo cabdisamed iyo ragga kaleba farxad weyn iyo sharaf weyn bay ii tahay inaan ka mid noqdo maanta goobjoogayaasha xarunteennii telefishinka qaranka taagan inagoo dib u casriyeynay dib u cusboonaysiinay uu noqon doonana insha allah TV la jaan qaaday standardka maanta lagu shaqeeyo telefishinka qaranku muddo dheer wuu soo shaqaynayay laakiin xaruntan cusub iyo qalabayntan cusub ayaan kusoo kordhinay injineeradan har iyo habeen nasan baan u mahadcelinayaa Cusmaan Qays shaqalle iyo xarigle dhammaantood sidaad noo weynayseen dhammaantiin sidaad dhammaantiin noogu timaadeen ilaa boqorro maayiro guddoomiye maxaan dhahay xildhibaano salaadiin suxufiyiin allah idin barakeeyo allah idin sharfo anakoo ka duulayna siyaasadda wadajir iyo waxqabad ee uu nagu hagayay madaxweynaha iyaga sharafta la Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Qirro waxaa ka go'an in xarun kasta oo ay dowladdu leedahayba la tayeeyo la casriyeeyo la horumariyo noqoto meel bulshada si siman ugu adeegta maanta inaanu safaaraddii usoo dhowaanay inaanu bulshadii usoo dhowaanay inaanu goobihii fogaaye go'doonkii kasoo saarnaano centerkii magaalada nimi sharaf bay noo tahay waana qayb ka mid a waxqabadka xukuumadda shaqaanu idiin ballan qaadaynaa inaanu bulshada isku wadno dhexdiina waxaanu u nimiba waxa weeyaan inaanu barnaamijyadiina gudbino waxay noqonayaa meel aad warbaahin kastaba aad kaga maarantaan isku soo hadlaysaan codkiinana aad ka gudbisaan bulshadana mideeya halkani waxa weeyaan xaruntani muhiim waxay u tahay dalka waliba telefishinka qaranka gudaha mooyaane dibadda markay noqoto dee qurba joogtan waxay ugu badan tahay wadankan Ingiriiska Yurub iyo gaar ahaan wadankan Ingiriiska marka madaxdeena ugu faraha badanina waa halkay timaado wadankan Ingiriiska inuu helo xarun weyn oo casriya oo bulshada dhex degan oo baahida bulshada soo gudbisa aad ay muhiim u ahayd sharaf baan ay tahay garbahayga injineerada iyo cabdisamed la'aantood waxba maan qabteen idinkana dhammaan marti sharafta ay timaxan leeyahay Allah idin karaameeyo shaqa inoo balana